waan ku salaamay saaxiib. waxa gudaha ku jira ayaa kuule ma fiicnin. daawona waad u baahan tahay si ma hadda weynka lagu gado farmasiyada. waxaad dareemaysaa in laabgelintu kugu yar tahay oo aad u baahan tahay in laabta lagu geliyo. habtan weli quraarada dhakhtarradu kuma aanay shubin oo farmasiyada lama dhigin. waxaad u jeelan tahay inaad u dugsato carafta qofka aad jeceshahay ee kaa durugsan. xataa urtiisa ayaa kuugu filan inaad dareento fayoobi iyo badqab. inaad farmasiilayaasha u sheegto oo qof waalanku moodaana waad ka baqaysaa. amba waxaad ka baqaysaa in lagu yidhaahdo beddelkiisii ayaannu haynaa. ood adiguna ku tidhaahdo waad ku beddelaadihiin oo wax gacallahayga beddel u noqon karaaba ma jiraan. waxaad u baahan tahay wax qalbigaaga maydho oo adduunkani wayna wasakhaynayaa saaxiib. si kastoo aynugu dadaalno saafi ahaanshaha qalbiyadeenna waxayuunbaa duulduul ku soo gaadhaya oo marada cadi way ka uskaga og tahay dharka kale. qalbiyada cadcadee saafiga ahina waa sidaas oo dabci kasta oo siloono kaa soo agdhowaadaa barmadow ayuu kugu reebayaa. waxaad tabaysaa garab aad ku tiirsato. ammaankaasaanay dhakhaatiirtu awoodin noociisa iyo sifooyinkiisa inay qoraan. farmasiilayaashuna aanay ka heli karin marfashka dawooyinkooda. si kastooo farta loogu qoray u caddahay oo ay muuqato. garab waa erey keliya ka kooban 5 xaraf, far la arki karana ku qoran, balse waa dhifyo naadir marla araga. garbaha u qalma in lagu tiirsado oo la cuskada. waxaad mooddaa inaad baadi goobayso calacal tima leh amba tuka baalcad. waxaad raadacaynaysaa cabitaan wax ku ilowsiiya. waxaad maalin oo dhan naftaada ku mashquulinaysaa howla adduun si aanay u xiisin oo dhaltabyo iyo jeeditaan aanay u dareemin. haddana marka gabalku kuu dumo ee habeenka haafkiisa dambe la gaadho, qalbigaaga iyo qudhaaduna ay qolku kariyaystaan, xiisayaashaaduna ay soo burqadaan, oolyowgaaguna uu dardar la soo kaco, ayaad hal mulqacadka ka bal lahayd oo aad ku ledi lahayd nagam oo qofka ay laabtiisa ka bannaan tahay bohol qofka uu tabayo oo madaxiisa saaran mooyaane aan buuxsamaynin. waxaad u baahan tahay quraarad yar oo ilin ay ka buuxdo oo aad indhaha ku shubato markaaad oohin damacdo ee aad awoodi weydo. waxaa suurayaa saaxiib in inuu kastoo jidhkaaga ay ilini ka burqato indhahaaga mooyaane. nefiska ugu badanna waxaa qofka siiya waa oohinta, laakiin mararka qaar ma awoodo. waxaad u baahan tahay balastar amba baandhays aad ku duubto dhammaan dhaawacyada aanay cidina arkaynin. dhaawacyadaas dhiigga saydhaya ee furan ee aad marba taabanayso bal sidaa yihiin. mararka qaar waxbaad niyeysanaysaa inaad bogsatay maadaama aad in muddo ay lowsanayd amba aad isilowsiinaysay. se isla marka aad keligaa noqoto waxaad arkaysaa dhaawacaagii oo weli qoyan oo dhiig baxaya. dhaawacyada ugu xanuunka badani saaxiib waa kuwa ruuxda. nabaadiina saaxiib.